قضبك لحاد وقدم بيا وحويان آداب وصفات الساعي والمصلح والوسيط ذاتك قدياشا أما حلين خلافات ستاقة آداب بالله آداب تسنات بي مهمة كو حكى أن يستشعر أنها عبادة يقوم بها استجابة لأمر الله قفكو مركو هاوشا يستاقني أمر الله قادني أمر ذاك الأردن كإلهي بكهرية كاسوق مركا قفكو تاقني فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إلهي وذلك أمره وحاولت إلهي كعصتان هذا الشهادة يأتي لحدي نهجاتية وحكم ذا ضاعت نمو أدابته وحكم ذا إن يترتوح الله يدابه ضاعت نمو يا إلهي وحلق دوني سيدا إلهي وشجع ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما قفك إصلاح أسمية إسقى إلهي رالين لقشك دوني فسوف نؤتيه أجرا كبيرا أجرا عظيما أجر وين بامسين إلى أبو لهي سبحانه أن وحى قرآن الكريم كاي لهي وكحصي إصلاحا أمدت كدحدة وذمرك الله وناتشيني قبولك إيمانيو إن الداعي دتك دحك ليه ويجي لفت جوه أنا يا هين هذا إسكوشي ضيّة أما إسرائيلية أما فعلتمية وإصلاح حبها سين هرب صوشين الذي يحتاج إلى الإصلاح ما يصلح كإصلاح حبها وحما إصلاحي كسائل هؤلاء يريد إصلاح يوفق الله بينهما ضدك وحدة حق ليه هدي أي وناق دون إياه هو إسخلاف سن لفت جوه إلهي شيسيني هو دحق ليه هدي حمان وتيدان هو مرميا مرنكو سي بدنيا waxaa ka mid ah dadka wax islaaxinaya inay dad akhlaaq wanaagsan oo dulqaad leh oo xalaash iyo xaraanta kala og oo kala garanaya wixii isku dir ah iyo wixii islaax hadallada ka dulduulaya qaarina isku dir noqon karaan iyo la safasho qaarna islaax waanu kala garan karaa dadkaas waa inay dad ku sifaysan bil xilmi wa si'ati al bali wa sabr wa ta'anni wa adam al ajala dad dulqaad lahoo degdegaynin oo hore u soo fadhiyaynin oo inaga dhammeey ahayn arrinku siduu ku dhammaanaya iyo goorbu dhammaanaya un hankoodii cilmiga sharciga waa inay dadku wax ka garanayaan si xaaraan aanay ugu dhicin marar badan baa iyadoo wax dadku ay islaaxinayaan diinta ay khilaafaan ilaahay ka cadhaysiiyaan ummadda dulmiyaan marka caalim dadku inay wadamada noqon karaan laakiin qofkii baabkan isagaa waa in wax uga baxsan yihiin diintu waxay ka tiri khabiira fi majaali nisaac وأنا وحوك صار كقف خلافات كحلنتيس قف مصلحة وحاجاتنا شروطها مهم سوى حكم ذا أن يكون محايدا إنه يقف لحالة وأطومر كهرباء قف كل الله سفيا مرين على قلتهم يوا ولا قدايا أرنكاسي فوانية ولا كستي شرع كستهدوك يا رب واسيدك يا أرنكاس إذا وإلا إلالية لبض الطرفية يكون كرسويه أو لحالة qofkii oo dhinac loo tuhmayo go'aankiisa la qaadan karayni shaytaankuna sawir kale u siinaya dadka waxa kamid ah yataharra al-adl cadaalad inay jirto garsoorku sidoo cadaalad ugu baahan yahay sulxa iyo isu jiididuna cadaalad bay u baahanta quraankaaba sheegay alla waxa uu faaslihu baynahuma bil adl wa aqsitu inna allaha yuhibbu al-muqsitin dadka dhexdooda wanaajiyo cadaaladana ilaaliyo oo waati aynu hore u soo sheegnay ka qowmiga ah ee wada badani ama maalkii madaxtinimada leh markuu mid miskiin qabsado ku habsado hadii la yiraahdo islaax ka galo warkaa weyn waxa loo daayo miskiinka wixiisa hala kala baro taa cadaalad lama yiraahdo waa dulmi aadaabta muslixiinta ama dadka wax dhex galay aadaabtooda ugu muhiimsan waxa kamid ah xifdul asrar aw asrar al mutakhasinin dadka murmaya sir baylay waa in sirtooda la hayaa gudiyaasha asraartooda waa in la hayaa waxyaabaha dadka kale eriya waxaa ka mid ah dadkiiba neefneefaya dadkii dadka u dhexeeya midiba qolo ayuu in yar u neefaya u sheegaya dabeetana wixii ay soo wadeen baa sii baxaya kadibna way kala kacaysaa waa laga sii tabaabushaystaa waxa uu leeyahay Fudayl ibn Iyaad imaamka la oran jiray weynaa almu'minu yasturu wa yansax walfaajiru yahtiku wa yu'ayyir qofka muslimka ah ee ceebtana uu asturaayo sirtu hayaa dadkana dantoodu ka raaca uu daneeyaa qofka liitaana dadka sharaftoodu meel kaga dhacaa uu xantaa way yu'ayyir waxna uu ceebeeyaa idan intaynu ka qaadan lixda qodob baynu ka qaadan lahayn fannigan isaga macluumaadka ku saabsan
ilaahayna waxaan ka baryayaa ummadda inuu quluubtooda isu jeediyo xaqana uu ku walaaleeyo shaydaankana uu ka dhex saaro